السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheeda sharafta leh ku soo dhawaada muuqaalkeenan cusub. daawadayaal muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadli doonaa sheekadii guusha ee shirkadda Coca-Cola. uma malaynayo aba ma jiro qof adduunka ku nool oo weli maqal sharaabka Coca-Cola la yiraahdo. Coca-Cola waa shirkad sharaabka soo saarta oo lagu qiyaasay hantideeda in ka badan $160 milyan oo dollar. sanad kasta waxay iibisaa in ka badan $40 milyan oo dollar. caalamka oo dhanna waa laga helaa. dad badan ayaa fahansanayn sida guushu u dhacdo, waxayna ka haystaan fikrado qaldan. fikradaha way aaminaan waxaanay ka dhigtaan wax xaqiiqo ah oo jirta. qofka iska caadiga wuxuu malayn doonaa in shirkadda Coca-Cola uu bilaabay qof milyaneer ahi si fudud uu ugu balaariyay adduunka oo dhan. balse xaqiiq ahaan ninkii bilaabay shirkadda sharaabka ee Coca-Cola waxa magaciisa la oran jiray Pemberton, John Pemberton. wuxuu ahaa nin farmasi iibiya, ninkaas oo ka shaqayn jiray daawooyinka. ninka lagu magacaabi jiray John kaas oo ahaa ninkii aasaasay shirkadda Coca-Cola. waxa uu sidoo hore soo sheegnay ka shaqayn jiray farmasi. wuxuu farmasigii iibiyaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu si khalad ah oo ugu talagalahay inuu isku daray kiimikaalo kaasoo ka soo saaray sharaab cusub. waxaanu isku dayay inuu iibiyo wixii uu soo saaray farmasigaasi oo ahaa sharaab ama waxaan hore looga arag, kaasoo dadka kaga iibiyay dadkii ugu horreeyay tijaabinayay midhii caagad ahaydba 5 senti. sanadkii hore Coca-Cola wuxuu iibiyay 9 caagadood oo kaliya. sanadkii waxay shirkadda Coca-Cola soo saartay lacag gaaraysa $50. $73 waxay ku bixisay xayeysiinta sharaabka. waxaadna arki kartaa inay khasaareen ama uu khasaaray ninka aasaasay shirkadda sanadkii ugu horeysay. maadaama uu soo saaray $50 waxa uu dib xayeysiisaan ugu bixiyay $73. tani waxay ka dhigan tahay inuu khasaaray $23 sanadkii ugu horeysay. sanad kadib shirkaddu waxay noqotay shirkad caalami ah taasoo meelo badan laga aqoonsaday. kadib waxa dhacday in niman ganacsatii ay damceen ninkii ka iibsadaan shirkaddii, waxaanay ka siisteen $23,000. kadib waxay noqotay shirkadaha ugu waaweyn caalamka, taasoo maalinba maalinta ka dambaysa kor u sii kacaysay dhaqaale. haddaba daawadayaal, inagoo eegayna muuqaalkeennan amba mawduuceennan maanta, waxaan isweydiinaa maxaynu soo qaadanay sheekadan guushii sheegaysa ee shirkadda Coca-Cola. qodobka ugu horeeya waxaa noqon doonaa waxaad ka bilaabi kartaa meel aad u hooseysa waxaadna gaari kartaa meel aad u sareysa. tusaale ahaan shirkaddan waxa lagu bilaabay farmasi. sanadkii ugu horreeyay wax faa'iido ah may samayn. ayaa u malaynaya inaad wax bilowdaa inay u baahan tahay wax weyn si aad u gaadho meel weyn. taasi waa fikir khaldan oo ay ka aaminsan yihiin guusha. qodobka labaad aynu qisadan ka faa'iideyno shirkadda Coca-Cola guusheeda waxaa ka mid ah waa wax iska caadi ah inaad wax natiijo ah arag bilowga hore. tusaale ahaan shaqaysay sanadkii dhammaa $50 oo keliya iyada oo dib khasaartay $23. daawadayaal, qodobka kale in ka faa'iidi doonaa waxa uu noqon doonaa waxaad heshaa waxaad u qalanto markaad sii wado dadaalkaaga. tusaale ahaan shirkadda Coca-Cola waxay soo saartaa sharaab cajiiba, waxaanu u qalmaa inuu caan noqdo. balse haddii uu ninkii aasaasay uu niyadjabi lahaa markii sanadkii ugu horeysay laga iibsaday keliya 9 caagadood watay dadaalkiisa, kaasoo aakhirkii gaadhsiiyey shirkadda Coca-Cola halkay maanta joogto. halkaasi oo halkii ugu dambeysay ee ay gaadho amba halkii ugu sareysay ay gaadho shirkad la yaqaano taasoo caalami ah, taasoo magac iyo maalba maanta u soo hoysay heerkeedii.